daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka daqiiqadaha wararka ee fiidnimo saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah taariikhdu waa 20ka bisha September 2023 qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalo la sheegay inay ka socdaan mudug iyo shabeellada dhexe gaalkacyo maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ayaa la soo taagay 3 nin oo loo haysta al-shabaabnimo wuxuu eedaysanuhu qirtay in nin la yiraahdo Cabdulqaadir oo ay wada shaqayn jireen uu u dhiibay halka bumbo una soo diray inuu ku tuuro saldhigga Mir Faysal Cali Waraabe oo baaq u diray beero ku dagaalamaya ceel afweyn isla sidoo kalena sheegay in ay Soomaaliland soo ceshan doonto xuduudaheedii arinta waxa la yiraahdaa afweyno inta isku maqantiin wada isku soo maqan yahay waa inaydun dad walaalaha ahaydeen walaalnimadii waa soo ceshataa reesisi oo loogu baaqay inaysan ku mashquulin dhisidda taalooyin iyo fagista xabaalaha reer SSC khaatuma inaanay ku mashquulin xuqdad sheegad gocosho wixii hore oo tagay taalooyin xuqdad ku dhisan xabaala qof waxa inaanay ku mashquulin buula barda waxaa qadiyaan laga taagan yahay ciidamada iska ridaya xabadda milxo oo ay Puntland ku wareejisay deeq loogu talagalay 400 oo qoys xildhibaanka laga soo doortay bariga Mandera oo shacabka ugu baaqay in la joojiyo dhiigga daadanaya xubintii suugaanta ayaan meesha ka marayn ayaduna ku soo dhawaada warkeennii oo fidsan shabeelow oo hoostaga bacadweyne waxaa ka socda baa la yiri galabtay dagaal qaraar oo u dhaxeeya ciidamada deegaanka kuwa galmudug oo isgarabsanaya iyo kooxda shabaab deegaankan ayaa ah deegaan istiraatiiji ah shabaabka ayaana doonaya inay markaan difaacdaan iyadoo la og yahay in ay ka soo baxeen magaalooyin aad u fara badan halkaas waxaa la sheegayaa in shabaabka lagu soo gaarsiiyay khasaare aad u xoogan weli lagama hayo war sugan dhanka kale shabeellada dhexe gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Cali Foldheer oo hoostaga Mahadaay waxaa ka socda dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka iyo shabaab halkaas waxaa laga soo sheegayaa in la gaarsiiyo shabaabka jab xoogan weli lama hayo warar madax bannaan oo xaqiijinaya arrinkaas Faysal Cali Waraabe ayaa baaq u diray beela maalmihii u dambeeyay ku dagaalamay ceel afweyn wuxuu sheegay in arinta ceel afweyn lagu ceeboobay dhanka kale wuxuu sheegay in ay Soomaaliland xuduudaheedii soo ceshan doonto ayna tagi doonto Bohodle waxaan baliyanayaa maamulka togdheer doraad wixii ka dhacay gaarigii haddii halkan kula dagaalami lahaayeen khasaaro badan ba dhixi lahaa laakiin si waayeelnimo ah ayaa yeelay shacbi dhexdiisa hadday ku weerari lahaayeen tuugtaa meesha soo gashay khasaaro dhahay si wanaagsan ayay u handalgaraysay waxaan igana boorinayaa raggii muddada badan fadhiyey gacan libaax ee wanaag ka shaqaynayay waxaan ka codsanayaa guddidii beesha habarjaco ee go-aanka soo saartay waxaan inay gogol dhigaan reer Sheekh Isxaaq dalka waxa qaribiyaa Soomaaliland qaribiyaa waa reer Sheekh Isxaaq reer Sheekh Isxaaq gogosheeda hala dhigo waxa ka xishoonina magaca sulux la wado wanaag la wado xumaan lagu shiray waa inoo fasax diiniin in shirtaan si degdeg ah loo fariisto dadka maanta naascaano jooga isku soo orojinaya jaanka ah ee sameynaya waxaan Soomaali sameyn ee nidaamkii lagu dagaalami jiray ee maxaabiista isku hayn jiray jabiyey ee dadka gowgowracaya waxaan leeyahay dhaqan Soomaaliyeed ma ahan dhaqan Soomaaliyeed waa boog cusub aan sameeyay laakiin la isku dayan maayo dhaqan xun lagu madayno laakiin waxa ogaataan inuu si dhaqso ah u imanayno bidnillaahi kariim si dhaqso ah dhaqsaalood iyo yoocda iyo buuhoodle si dhaqso ah u imanayno waan imanna xuduudeeda qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa dadka reer SSC baaq u diray waxayna sheegeen inaysan ku mashquulin dhisidda taalooyin iyo qubuuro dadka Soomaaliyeed kala dhexdhiga cuqdad reer SSC khaatuma inaanay ku mashquulin xuqdad sheegad gocosho wixii hore oo tagay taalooyin xuqdad ku dhisan xabaala qof waxa inaanay ku mashquulin ay noqdaan dad gob ah oo waxa iskala sareeya oo han sare leh
oo isku kalsoon oo ilaahay ku kalsoon waayo diin ahaana wax u fiican ma aha dadnimadooda iyo damiirkooda iyo shakhsiyadooda na way dilaysaayo jiilashooda dambe cuqdad iyo utub bay ku reebaysaa oo ay dad liita inay isu arkaan xataa keeni karto marka waxaa inaba in laga tirtiro daakirada in laga tirtiro laga baabi'iyo oo dadku qalbigooda ay saafiyeyaan baan uga baahannahay marka sharafna ma aha ammaanna ma aha cuqdad beerista iyo colaad horintu waxaan xusi lahaa dadkan boqortooyadii ingiriiska oo dunida in badan haysatay xilligaas bay muddo dhan islaynayeen oo dad aad u fara badanna ka laayay hal taalo looma dhisin dadkaas marka qabaa'il soomaaliyeed oo ay islaayeen wixii ay kala dileen in la waariyo oo laga dhigo maalinba ama xabaal la soo qufo ama taallo la dhiso munaasamaa kuwii gaaladu dishay baanba loo dhisin tuulo bardo waxaa qadyaan laga taagan yahay ciidamada xabadda iska ridaya kulan amni oo halkaas ka dhacay ayaa looga digay ciidamada xabadda iska rida waxa la isla qaatay maadaama maalmahan dambe ay soo bateen ciidanka xabadaha iska ridaya in la joojiyo oo xabadda aysan ka dhicin degmada Buulburto xabadda dhacda ay ku dhacdo cadawga khawaarijta maadaama ay diyaar garow lagu jiro sidii cadawga khawaarijta looga xureyn lahaa deegaanada ay ka joogaan gobolka Hiiraan iyo guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan rabnaa diyaar garowgeenu inuu ahaado diyaar garow dhameystiran ciidankana waxa ka rabnaa rasaasta loogu talagalay cadawga inaysan ku ridin ugana nixin hooyooyinkooda iyo waaridkooda aysan uga nixin xabadaasu ay noqoto mid ku sii jeeda cadawga khawaarijta taasna runtii waa ka rajaynaynaa ciidamada sharafta badan ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka inaysan xabadaha aysan ku ridin magaalada taasna waa la isla qaatay waxaan rabnaa ugu dambeyntii in qodobadii halkan ka soo baxay la isla adkeeyo shacabka degmada Buulburtona qaybtooda ay ka qaataan saraakiisha ka soo qayb gashay shirkan amnigana waajibaadkii la kala qaatay ay fuliyaan maamulka degmada Buulburtona mar walba wuxuu u heelan yahay sidii amniga degmada Buulburto iyo deegaanada hoos yimaada loo xaqiijin lahaa weli waxaan bartanka uga jirnaa daqiiqadaha wararka ee fiidnimo xildhibaanka bariga Mandheera ayaa cambaareeyay dagaal beeleedyada halkaas ka soo laalaabtay dadka ayuuna si adag ula hadlay hadalkiisa ayuu sidaan u dhigay xildhibaanku waxaan wax yar uga faa'iideysanaa arrintan dadkeenna oo Mandheera County ilaahay inaan ka baqna inaan dhiig aan daadinayna aan joojinna dhib badan ka jira badalka development iyo wax noocan aan ku mashquul lahayn waxaad moodaa anaga dadkeena kala cilintooda aan ku mashquul haynaa anaga dadkan waa dad muslimiin ah waa dad la xisaabin doona waxaan rabnaa inaan maartay aan joojino dhiigga aan daadinayna ilaahay waad ogsantihiin 4 sano oo maartay abaar ah ayaan soo marnay hadda naxariisaas ilaahayna si dhulku waa qaboobay ummaddu waa kala degtay haddana waxaan maartay aan abaalmarin ka dhigahaynaa inaan dhiig muslimka daadin marka waxaan dadkayda aan u baaqayaa meel kasta oo joogaan arrintan wadankeena ka socoto inaan joojino inaan dhiigga daadinayna aan joojino wada hadal inaan ku soo noqonno miiska inaan ku soo noqonno oo Soomaali hadii la soo imaado oo la taysta runtii lama heshiin waynaa waxyaalaha yar yar oo dadka u dhaxee inaan miiska iskugu imaadno oo si walaaltinimo ah si oo maartay muslimnimo ah inaan u dhameysano oo dhiig aas ku daadana dhulkeena ayaan ummadeena ugu baaqayaa ilaahayna waxaan ka baryaa in aad dhiig damba naga daadan insha Allah ummadana ha isxakamaysa runtii Soomaali ma kala reynays tii weyneeda maartay kala reyn ways marka waxaan leenahay markay 100 dhimata markay heshiin leen hadda intaan maartay aan dhownahay aan maartay aan dadkeena barqabanna waana mahadsantiin insha Allah khayr Allah insi gaalkacyo maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ayaa la soo taagay 3 nin oo loo haysta al-shabaabnimo 3 nin ee la soo taagay maxkamadda kuna eedeysan shabaabnimada ayaa waxa la sheegay inay dilal ka geystaan magaalada gaalkacyo wuxuu la hawlgalay khawaarijta arxanka daran ee argagixisada ah al-shabaab wuxuuna wax ka weeraray magaalada Xudur iyo tuulada Burudho wadankan kuma taalo
CID-da mudugna ma aqoonin laakiin asagaa u sheegto afkiisa ka sheegtay eedaysanaha labaad waxaa jiroo kale qofka uu la duulo xadiiska nabiga wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam qofka uu jecel yahay magaciisu ahaanaya qofku la duulu ka tirsan yahay marka uma baahna in la yiraahdo waa al-shabaab iyo waxa fulaan mar hadduu al-shabaab la duulay isaga halkaasaan uga baxayaa xarfaanay dareenku wuxuu yiri magacyo gaagaaban iyo la sheegay magaca sidii loo soo gudbiyay ayaa CID-du u soo gudbisay xiraalantuna u qaadatay magac iyo qofka aabihii iyo magaciisii intoo meeshay ku qoran yihiin meeshii lagu dilayna meeshay ku qoranta oo kii ugu horreeyana waxaa lagu dilay iskuulka al-shacab oo ku yaala xaafadda galmudug kii labaad waxaa lagu dilay iskuulka cabdulaahi ciise oo ku yaala xaafadda galmudug kii saddexaad waxaa lagu dilay suqiiraha reer khalaf wuxuu ahaa nin la yiraahdo magaciisa Gaaleef halkaasuu ku dhintay intana rag baa la socday keligii ma ahayn waxaa halkaa ka muuqata marka maadaama nimankii waaweyneed oo amiirada ahaa iyo nimankii argagixisada u ahaa hogaamiyaasha ay halkan ku wada cad yihiin inay wada hawl galeen lana socdeen waxa weeye biyo kama dhibcaan haatanna ku soo dhowaada xubintii suugaanta waad ku mahadsantihiin daawashadiina barnaamijka daqiiqadaha wararka ee fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo tan iyo inta aan ku kulmayno barnaamijka xiga ee daqiiqadaha wararka ee duhurnimo ee berri faa'iidooyinka adeega e-pesa send money dirista lacagaha withdraw money bixidda lacagaha airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka e-pesa pay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka e-pesa global xawilaadaha e-pesa mastercard Virtual Mastercard Banking Service adeegyada bangiga e-pesa goor kasta iyo goob kasta